waan qaylinayni si xoog ah bal inaan helno caawimaad laakiin muusigu aad u dheer awgeed maanan helin waxna maqla mid ka mid ah goobjoogayaashii dhacdadan ayaa yidhi sidan dabaaldega Halloween oo ka socda bartamaha caasimadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sabtidii isku bedelay murugo iyo meydka oo tiro beelay kadib markii ugu yaraan 151 qof ay ku dhinteen burburka iyo isjiidjiidka ka dhashay dad badan oo ku xayiran wada cidhiidhi ah sida ay saraakiishu sheegeen 150 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay ayuu yiri Jason Boom oo ah madaxa waaxda dabdamiska ee Johnson qaar badan oo kamid ahna waxa ay ku jiraan xaalad halis ah ilaa 100,000 oo qof ayaa ugu dabaaldegay Halloween Town oo ah ay ku taala bartamaha Seoul oo caan ku ah cawayska habeenkii fasax ayaa muddo dheer ahaa mid aad looga jecel yahay wadanka oo dhar ka hor inta aan loo joojin xanimaadaha coronavirus-ka awgeed ee lagu soo rogay magaalada 2 sano ka hor hadda dhalinyaradani ayaa waxay u dareereen xafladaha dabaaldega habeenkii sabtidii subaxnimadii Axadda dadkii xafladda joogay ee dharka qurxoon ku labisnaa ayaa ka cararay goob ay daadsan yihiin meydadka dhalinyarada isugu soo baxay cawayska iyadoo qasiya jahwareer badani ka dhashay shirarka jaraa'id ee qabteen mas'uuliyiintu waxay ku sheegeen inaysan wax fikrada ka haysan waxa sababay dhimashada iyo dhaawaca inta leega ma sida dabaaldegyada sanadlaha ah isu dhaqsa isugu rogay masiibadii ugu xumeed ee wadanka tan iyo 2014 markii sawirada meydadka oo isdul saaran iyo safafka dhaadheer ee shaqaalaha gurmadka degdega ee la tacaalaya dhaawaca lagu faafiyay baraha bulshada ayaa Kuuriyaanku waxay dalbadeen jawaab iyo isla xisaabtan degdega Mr. Kim oo ah taliyaha biliiska Seoul ayaa sheegay in wax yar laga sheegi karo sababta musiibadani keentay ilaa hadda sababtoo ah in la aqoonsado dhibanayaasha iyo mudnaanta koowaad waxa uu intaasi ku daray kooxaha iyaga baadhistu waxaanu diiradda saaraynaa aqoonsiga dhibanayaasha iyo ururinta cadaynta goobta saacadii hore ee subaxnimadii Axadda dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay isbitaalada iyo meelaha meydadka lagu kaydiyo si ay u raadiyaan dadkooda inta badan kuwa la dilay waxay ahaayeen dhalinyaro ka yar ama leeg 20 sano dhacdadani ayaa loo diiwaan galiyay masiibadii ugu weyneed ee South Korea ka dhacda sanado badan kadib